muddo dhowr sano ah kadib markii dadaal iyo juhdi dheeraad la geliyay isla markaana waqti lagu lumiyay oo ay ku baxday dhaqaale fara badan lacag cadadkeedu uu gaarayay $180,000 ay bixiyeen qurba joogta ka soo jeeda dalka dibadiisa iyo sidoo kale dadka degan waqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caabudwaaq ayaa waxaa maanta lagu guuleystay in xariga laga jaro Shifa Mental Hospital Caabudwaaq ee ah meeshii ugu horeysay loogu talagalay in lagu xanaaneeyo ama lagu dabiibo dadka dhimirka la ama ka jira maskaxda oo walwalan isla markaana loogu talagalay in lagu daweeyo waxaan munaasabad maanta xariga looga jaray lagu qabtay gudaha xaruntani ka soo qayb galay bulshada noocyada kala gedisan shacabka reer Caabudwaaq iyo sidoo kale tiim kalkaaliyayaal oo horkacayo Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaana Xabeeb oo kamid ah dhaqaatiirta ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho kaasoo muddo ka badan usbuuc ku sugnaa degmada Caabudwaaq hawlo caafimaad u yimid deegaanka waqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caabudwaaq waxaan munaasabadii maanta xariga looga jaray xaruntan cusub ee nimirka lagu talagalay in lagu xanaaneeyo dadka walwalan halkaas qodbada ka soo jeediyay qaar kamid ah howlwanaanadii xaruntani oo uu kamid yahay Cabdirasaaq Jaamac Garas oo asoo halkaas ka hadlay waxaana kamid ah hadaladiisii waxaan ka rajaynaynaa in isbitaalka noo furmay uu ka qayb qaato dadaal dheer uu geliyo maskax iyo aqli uu geliyo dadweynaha taas aan ku dardaarmayaa waxaan halkaan uga dirayaa baa dhammaan dadkii ka qayb qaatay dhismaha isbitaalka oo ahaa dad jaaliyada oo si qaaraan ah ku ururin jiray waqti dheer baad sabirteen waqti dheer baad ururin ku jirteen waxqabadkiinii wuu muuqday saaka wuxuu u muuqday inuu saaka halkan ka dhisan yahay isbitaal aad ballaaran qurux badan u diyaarsan in lagu shaqeeyo oo bukaankiinii aad ka naxdeen lagu dayacto Abdullahi Baasoweyne oo kamid ah marti sarafta ka soo qayb gashay munaasabadii maanta xariga looga jeeyay xaruntan dhimirka ayaa isna halkaas ka hadlay waxa uu ku amaanay mahadcelin iyo waliba bogaadin uu diray guud ahaanba inta isku hawshay hawshan in heergasho oo ka soo shaqeysay xaruntan dhimirka dhaqaalahooda iyo maskaxdooda waliba juhdigooda ku bixiyay in maanta la xariga jaro xaruntan cusub ee loogu talagalay dadka walwalan in lagu xanaaneeyo lagu daweeyo oo ay ku baxday dhaqaale aad u fara badan dadkii lacagta ku baxshay oo hantida ku baxshay oo dhaqaalaha ku baxshay oo soo dhiibay oo qurba joogtaha oo Soomaaliyeed ama deegaanka Caabudwaaq ama Galgaduudba u dhashayna waxaad aragtaan oo aan maanta dhex taaganahay dal la aamini karo oo wax loo dhiiban karo oo wax furi kara oo hawl qaban kara inay noo joogaan oo ay Galgaduud joogaan Caabudwaaq joogaan sida loo soo oo kale maanta Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaana Xabeeb oo kamid ah dhaqaatiirta ugu caansan xanuunada ku dhaca xagga maskaxda oo ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho iminkana ku sugan degmada Caabudwaaq isla marhaantana kamid noqon doona halwadeennada iyo mas'uuliyiinta isbitaalkan maanta Shifa Mental Hospital ee laga hirgeliyay degmada Caabudwaaq ayaa isna halkaas qodbad ka soo jeediyay waxaana kamid ah hadaladiisa hambaliyo waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa qurba joogta shanta farood ma sinna qurba joogtana ma sinna reer Australia boqolkiiba 778,000 ayaa ku baxday baa leeyahay isbitaalkan reer Australia waxay bixiyeen 60,000 reer Australia ha guuleysteen Australia dadka degan oo Soomaalida ee noo yabohay ha guuleysteen UK baa ku xigta warabta soo sida maay UK baa ku xigta Xasan Diini telefishinka caalamiga ah ee Caabudwaaq